gudoomiyaha gobolka Daadmareer Axmed Diiriye Cabdilaahi oo warbaahinta qaranka uu rameeyay ayaa ka waramay waayaha ku gadaaman gobolka Daadmareer waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay wax ka qabashada arrimaha bulshada isagoo amuurahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan ka warbixinayaa xaaladda guud ee gobolka Daadmareer waxa bariyahan jiray gobolka Daadmareer hadaan idin ka warbixiyo xaaladdiisa guud waa gobolku waa nabadgelyo waxa jiray in saddex xildhibaan la soo xidho falal amni darra ku eedeysan kuwaasoo falalidii ku amniga loo soo xidhay oo ku jiro maayir ku xigeenka degmada Oodweyne ciidanku gacanta waxa ku jira waxa ku xidhan nimanka hadda xarunta CID-da baaristina waa socotaa cid kasta oo muxuu ahaay falalidii ku amniga lagu qabtana ciidanku talaabo ka qaadayaan waxa weeye cidna ka bari maayaan waxa weeye cid kasta oo horumarka gobolka iyo amnigiisa wax yeelisana waxa weeye ciidanku waa xilsaarin talaabo laga qaadaya talaabo sharciga waafaqsan baana laga qaadaya waxa weeye baaristi waa socotaa xildhibaanadaas iyo maayir ku xigeenkuna waa xidhan yihiin waxaanay ku eedeysan yihiin falal lidii ku amniga gobolka waxa weeye cid kasta oo gobolka horumarkiisa iyo amnigiisa qalqal galinaysa talaabo laga qaadaya waxa jiray bariyahan waxa moodaa waxa nagu soo badanayay qamriga maandooriyaha qamriga taasoo maxuu ahaay ciidanku ay gacanta ku dhigeen gaari qamri siday 410 litir maxuu ahaay ciidanku maalin dhaaf buu baxaa 130 kilomitir xagga xuduudka ayuu maalin dhaaf kormeer ugu jira sidii maxuu ahaay loola dagaalami lahaa maandooriyaha qamriga bariyahan dambe inuu soo badanayay shacabka gobolka Daadmareer waxaan ka codsanaynaa inay ciidanka amniga ay gacan ku siiyaan sidii ugu hortagi lahaayeen maandooriyaha qamriga oo bariyahan ugu soo badanayay waxaan moodaa in bariyahan si xad dhaaf oo baalkaas nagu soo kordhay waa muxuu ahaay waa faqran hadaan laga wada shaqeynna waxa weeyaan sida ay tahay wax loogama qaban karo waxaan shacabka ka codsanaynaa inay ciidanka amniga gacan ku siiyaan ciidanku waxa weeye maalin dhaaf bay u baxaan 130 kilomitir xagga xuduudka ayay maalin dhaaf u baxaan si ay muxuu ahaay cid kasta oo muxuu ahaay maandooriyahan qamriga ama haday noqoto xagga amnigaba uga howlgalaan run ahaantii ciidanku dadaal bay sameeyeen bariyahan ugu dambeeyo xoog bay uga howlgaleen waana socotaa howlgalka ciidanku ay ugu sidii loo dabargoyn lahaa maandooriyaha qamriga oo bariyahan dambe nagu soo badanayay waxaan leeyahay waa faqran gaari kasta oo lagu qabtana waxa weeye dawladda la wareegi doonta talaabo sharciga waafaqsan waa laga qaadi doonaa waxaan uga digayaa in cid kasta oo lagu qabto qamrigan maandooriyaha nagu soo badanaya afadan qaran ee aan hore uga jirin gobolka inta laba laga qaadi doono gaarigana dawladda la wareegi doonta waxa weeye xaaladda guud gobolku waxa weeye 100% nabadgelyadiisu waa sugan yahay wax dhibaato hadda ka jiraan ma jiraan aad iyo aad baad mahadsantihiin